dhowr nin oo ka soo jeeda qoysas ladan ayaa soo doontay si ay u guursadaan, laakiin maadaama ay lahayd dabeecad aan fadhin markasta waxa ay keensan jirtay shuruudo la yaab leh. maalin aabaheed waxaa u yimid nin guurdoon ah. Leyla ayaa ku tiri, in uu guursado miyuu doonayaa? aabe, aniga waxaan guursanayaa keliya nin asoo nool la ila doogo haddii aan ka hor dhinto. boqorkii aabaheed ahaa oo naxay ayaa gabadhiisa ku yidhi, gabadhayda maxay tahay waxa aad ku hadlayso? ninkii guurdoonka ahaa ayaa isna yidhi, amiiradda maad ciyaarta iga daysid, midda kale maxaad uga baahan tahay dalabkaas in lagu sameeyo? amiiraddii ayaa ku jawaabtay, haddii qof aniga ay jecel yahay, wadnihiisa aniga ayaa leh. marka dhimashadayda kadib maxaa macno ah oo ay u samaynaysaa nolosha? dhanka kale, haddii ninkayga uu iga hor dhinto, waxaan diyaar u ahay in la ila doogo aniga oo nool. nimanka dhan waxa ay ka baqeen shardiga amiiradda, marka dhammaantood way ka niyad jabeen. boqorkii ayaa si hoose u yidhi, waxa ay gabadhayda samaynayso ma aha wax fiican, laakiin gadaal ayay ka shallaayi doontaa. isla waqtigaas dhinaca kale waxaa jiray dhakhtar dhallinyaro ah oo lagu magacaabi jiray Kayse. waxa uu ku noolaa tuulo yar oo xoogaa ka yara fogeyd magaalada boqortooyada ay ka talinayso oo ay Leyla ku noolayd. mar kasta waxa uu si lacag la'aan ah ku daaweyn jiray dadka masaakiinta ah ee ku nool tuuladiisa. maalin ayuu Kayse waxa uu ka war helay in amiiradda ay baadigoob ugu jirto ninkii guursan lahaa, balse ay wadato shardi la yaab leh. Kayse oo muddo dareen u hayay Leyla ayaa ku faraxsanaa inay guurdoon tahay, balse si hoose ayuu u yidhi, oo nolosha miyaa la isku duugayaa hadda? okay, aniga kama baqi doono arrintaas, keliya waa wax hal mar uun ah. aniga hadda maba helin weligay fursad aan kula kulma amiiradda. maadaama rabitaankiisa ku aadan Leyla uu aad u batay, Kayse ma jirin wax uu ka baqaayay. sidaa darteed waxa uu go'aansaday in uu aado qasriga amiiradda si uu u guursado. intii uu waddada ku soo jiray, Kayse waxa uu ka soo tallaabsaday webi halis badan, balse ku adkaysigiisa iyo rabitaanka baaxadda leh ee uu u qabay Leyla ayaa ka caawiyey inuu ka soo gudbo dhammaan caqabadaha. waddo dheer kadib, ugu dambayntii waxa uu soo gaaray qasrigii si uu ula kulmo boqorka iyo amiiradda. boqorkii markii uu maqlay codsiga Kayse aad ayuu u qoslay. amiiraddiina waxa ay tiri, oo weli qof aniga inuu guursado rabo miyaa jira? waan hubaa inuu soo gaaray shardigayga, haye soo sax ma aha? miyaa jira? waan hubaa inuu soo gaaray shardigayga, haye soo sax ma aha? waa in layla kaa doogaa adoo nool haddii aan kaa hor dhinto. Kayse ayaa la soo booday, waan ogahay Leyla, waan ku jeclahay, waan aqbalayaa wax walba si aan u noqdo ninkaada, xataa haddii anoo nool la ii doogayo. Leyla oo indhaha la taagtay daacadnimada Kayse waxa ay ku qasbanayd inay aqbasho. boqorkuna aad ayuu ugu farxay arrintaas. si degdeg ah ayaa waxaa loogu dhigay aroos qaali ah oo aad loogu mashxaraday. guurkooda kadib, Kayse waxa uu go'aansaday inuu dib ugu laabto tuuladiisa isaga oo wata xaaskiisa. markii ay soo gaareen, Leyla oo gacanta ninkeeda iska filiqday ayaa tiri, maxaa dhacay? hadda gurigan dumi raba adiga miyaa leh? ninkeedii ayaa ugu jawaabay, saacan laga bilaabo adigana waad ila yeelan doontaa. waxa ay tiri, maya, kuma noolaan kari gurigan sidaan u yaalla, xataa kuuma joogo hal qof oo shaqaale ah. aabbahay waad weydiisan kartaa inuu noo dhiso guri qurux badan. Kayse ayaa ugu jawaabay, maya Leyla, nolosheenna waa in si wada jir ah aan u quruxsannaa. waqtigii waa isguray. Leyla waxba kama bedelin dabeecadaheedii hore. waxay ahayd mid caajisley ah, kibir badan oo aan isku daalin inay howl qabato. hawsha guriga oo dhan waxaa qaban jiray ninkeeda, laakiin wehsideeda awgeed caafimaadkeeda ayaa xumaaday. kadib maalin ayay si aad ah u xanuunsatay Leyla. Kayse ayaa ku daaweeyey waddo walba si ay u caafimaado, laakiin waxba isma bedelin. boqorkii ayaa si degdeg ah u keenay qasriga si daaweyn dheeraad ah ay u hesho, laakiin ma jirin cid wax ka qaban kartay cudurka la fahmi waayey ee Leyla. markii amiiraddii ay geeriyootay, Kayse murug ayaa u soo hoyatay. maalintii oo dhan waxa uu ku dul barooranayay nacashkii lagu riday meydka xaaskiisa, balse boqorkii weli waxa uu xasuustaa ballantii uu qaaday wiilka uu sodoga u yahay. markaas ayuu yidhi, maalinta la aasaayo gabadhayda Leyla, Kayse adigana waa in lagu aasaa. tanina waa ballantii aad horey uga qaaday gabadhayda. amarkii boqorka kadib, Kayse iyo nacashkii uu ku jiray meydka xaaskiisa hal meel ayaa la wada geeyey. si murugo leh ayuu u ag fadhiistay. cabitaan iyo cuntana waa ka degi waayeen. maalmo kadib, markii la gaaray waqtigii la duugi lahaa labada lamaane, reer aakhirad cabsi leh ayaa si lama filaan ah hortiisa u soo istaagay. Kayse ayaa aad u cabsaday. markaas ayuu yidhi, maxaa iga rabtaa? iska kaydaa, aniga waxba ma samaynin.